مسؤولية gaar saaran gabdho raashinka badanaa dadka kariya waa gabdhaha dadka wax siiya oo wax quudiya dadka waa gabdhaha marka hadii sokorta aad ku badisaan ama aad cusbada ku badisaan ama saliid ku badisaan wax Soomaali oo dhan ayaa waxad ku yeelanaysaan qaybad wada jirsiinaysaan oo cudur ku dhacaya ama dhiig ku dhacaya ama sokor ku dhacaya marka waxa wanaagsan gabadhii guri joogtaba inay fahanto cudurrada raashinka la cunayo waxa afka la galiya cudurrada ay keenaan iyo sidii looga hortagi lahaa waxaan ku waalin lahaa hooyooyinka Soomaaliyeed ee maqlaay haddii ay ku arkaan calaamadaha sida maartay kaadi badan biyo badan anuga oo rabo inuu cabo iyo marmar habeenkii markuu seexdo oo isku kaadinayo calaamadahaas dhan waxay noqon karaan calaamado inuu cunuga sokor qabo marka si degdeg haddii loo baaro cunuga si wanaagsan loo daaweeyo si joogto maartay loola socdo waxa laga hortagi karaa waxyaabo badan oo cunugaas ku dhici lahaa noloshiisana maartay wax badan quality-geeda kor u qaadmaysa ka hadlaa calaamadaha lagu yaqaan cudurkaaseti waxa dhigi karnaa cudurka waxa leeyahay dadka qofka qabo ama qofka looga shakinayo oo hore loo diagnose gareenin ama loo faxsin diagnose gareenin oo looga heli karaa dhigi karno inuu isku arko kaadi badan inuu musqusha inta frequent uu gali jiray musqusha ee badato waqti wax badan uu musqusha ku noqdo inuu biyo badan cabo inuu dareemo cunto badan inuu cuno ama weightkiisa inuu miisaankiisa hoos u dago waxa kale oo arki karnaa qofka inuu dhidid badan dareemo tabar dari dareemo cudurro calaamado badan oo leeyahay markii laga hadlayo ka hortagga cudurka macaanka waxyaalo badan ayaa looga hortagi karaa ka hortagga laba nooc u baxaya loo kala saaraya in laga hortago cudurka ka hor intuu qofka cudurka ku dhicin iyo marka ku dhaca kadib ka hor intuu qofka cudurka ku dhicin waxa laga rabaa inuu ka taxadaro cunno isku dheelitiran qaato waxyaalaha macaanka ka fogaado xad yarna uu ka qaato una sameeyo exercise ku filan una check up isku sameeyo mar walba ama uu control uu isbitaalaadka tago sokortiisa say tahay marka ay ku dhacdo kadib sokortana in uu ka fogaado waxyaalaha macaanka ee noqoto sokorta caadiga ahayd iyo waxyaalaha sokorta ku badan tahay shaaxa iyo waxyaalahaas oo kale iyo inuu qaato cunno isku dheelitiran sidii hore laga rabay daawada loo soo qoro sidii loogu talagalay uu qaato exercise-kan intii hore uu ka badiyo check up-kana sidoo kale hadduu monthly sameyn jiray waa inuu weekly u sameeyo hadduu weekly sameyn jiray waa inuu daily u sameeyo waxaa loo baahan yahay wacyigelin degdeg qofka hadduu tuunkii calaamooyinka isku arko degdeg ama asoon qabin xataa inuu check up iska sameeyo had iyo jeer si asoo ku raagay ama yacni oo dhibaatadii communicationkii cawaaqibtii keenay aysan u noqonin marka waxaa loo baahan yahay wacyigelintaas si looga hortago cudurkan yacni dhibaatada la imaan karaayo iyo daaweyntii iyo keergareyntii oo bukaanka loo baahan yahay daawadii oo noqon karto midii insulinka ee midka yacni oo kowga ah oo type 1 ka ah iyo midda kale daawooyinka afka laga qaadanayo taasoo loo baahan yahay hadii jeer in yacni joogto loo helo iyo muxuu ahayto midda ugu muhiimsan lifestyle-ka ah yacni in yacni noloshii la bedelo orod la galo oo activity yacni exercise la sameeyo raashin oo aan baruur lahayn oo subag lahayn ma macaan lahayn in la cuno waxaasoo dhan iyo baaritaanka joogto loo sheego